waxaa caado u noqday xukuumadda muuse ku tumashada xuquuqal insaanka iyo caburinta saxaafadda iyo xadhigga axsaabta iyo muwaadiniinta. waxaa ka muuqda baahsanaan, musuq maasuq iyo maamul xumo. waxaa muuqata oo soo ifbaxaysa inay luntay kalsoonidii beesha caalamka ku qabtay somalilan oo ahayd meel uga duwan dhammaan gobolada geeska. gudoomiye adigoo raalliya qodobadan marar badan oo hore waad ka hadasheen maxaa cusub? waxaa cusub dhacdadii shalayto. waayahay shalayto hadhcad indhaha shacbiga reer somalilan waxa lagu gowracay rajadii ay ka qabeen doorashada iyo hanaanka dimuqraadiyadda. waxaa la ansixiyey, hortooda lagu ansixiyey xubno xeerku ka xaaraantinimeeyey inay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka qaranka. marka iyaguna waxay leeyihiin waa sharciye, arintaas sidee baa loo kala saaraya? waxaa loo kala saarayaa sidee baad u aaminsantihiin inaanay sharci noqonayn? waxaan ka khaldanaa waanu caddaynay, shacbiguna way caddeeyeen, saxaafadduna way caddaysay. xubno ka tirsan xisbiga kulmiye ama xisbiga wadaniba ama cidba hadduu noqdo looma ogola inuu ka mid noqdo commission. ina riyo raac waxay leeyihiin imanka xisbiga kuma jiro. goormu ka baxay? adigu meeluu kaga baxay miyaad haysaa? iyagu saasay sheegayaan. dee meeluu kaga baxay laakiin idinku ma cadaynaysaan meeluu hadda kaga jiro? dee waxaa la caddayn karaa un meeluu kaga baxay marka la helo ayaa la caddayn karaa meeshuu kaga jiro hadda. waayahay marka haddii ay 10 cisho ka hor buu isagoo xisbiga magaciisa ku hadlaya intaan la magacaabin uu caayay xisbiga wadani. marka maxay tahay ujeedadu bay idinla tahay? maxaasan loo sameeyey? ujeedadu de waxaa ka muuqda hanaankii dimuqraadiga in laga guuroy oo wixii aan anigu doonayunbaa dhaci karaa. taasina somalilandna ma dhaqayso. waay maxaa lagu dooranayaa xubin aan sharciga waafaqsanayn sida idinku aaminsantihiin? waxaa lagu dooranayaa dee ninkii doortayba horta ka jawaabi doona. laakiin anagu wuxun baanu rabnaa xubno dee waafaqsan sharciga. qofka shaksiyaddiisana ma eryanayno, deegaanna lagu eryan maayo. horena way u dhacday dad axsaab lagu eedeeyey oo loo diiday inay ka mid noqdaan commissionka. waxaa ka mid ah inaanu soo magacaabnay commissionkii hore oo magaalada jooga Dr. Fadal la yidhaahdo. idinka diiday? waxaa naga diiday madaxweyne Siiraayo isagoo dembigu u haystayna waxay ahayd wadani buu ka mid ahaa. weliba isagu si rasmi markaa istiqaalad muddo ka hor uu dhiibay. waxaad sheegteen inay aad maaragtay commissionkaas horena xubintii waad ugala noqoteen, labadiina xusbina shir jirayd baad wada qabateen, aad ku qaadacaysaan ansixintii commissionka. maxay ka dhigan tahay waanu qaadacnay? waxay ka dhigan tahay commission sharci waddanka kama jiro. haye doorasho ay qaban karaanna ma jirto. haye taasay ka dhigan. ilaa goorma? ilaa dee la saxaya khaladaadka jira. sidee baa loo saxi karaa? waxaa loo saxi karaa xubnihii sharciga waafaqsan in laga saaro waa loo saxi karaa. arrintan suuragal ma noqon karta inay doorashadii haddana dib u dhigto? doorashada dee ninkii arrimahan sameeyey tallaabooyin ka qaaday baa ku talagalay inay dib u dhacdo. dadka qaran waxay aaminsan yihiin labadiina dhinacba inaydaan doorasho rabin oo idinkuna markii hore commissionkii hore aad ku dheganaydeen, haatanna qoladani ay iyaguna wax lug tahayaan. arrintaa inaad ka midaysantihiin maxaad kaga jawaabaysaa? waxaan kaga jawaabayaa saddexda xisbigu heshiiyeen, madaxweynuhuna dhinacbu ka seexay. heshiiskuna waxaa in commission cusub la dhiso. madaxweynuhu heshiiskaa ka baxay dabad ka qarabta xubni commissionkii horeabu soo celiyey isagoo heli karayay qofaan commissionkii hore ka mid ahay. dalkan dee muuse xoogna kuma qabsan, xabadna kuma qabsan, xoogna kuma haysan karo, talena looma waayin, tamarna looma waayin. waxaanu diyaar u nahay inaanu waddanka badbaadinno wixii khaladaadana saxno.